wacan daawadayaal meel walba oo joogtaan halkani waa Warsida TV qodobada wararkayga aad ku daawan doontaanna waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya oo ra'iisul wasaare Roble ku wareejiyay doorashada Soomaaliya iyo amnigeeda xildhibaanada golaha shacabka oo ka laabtay muddo kordhintii dhalisay dagaalo iyo dibadbaxyo ka dhacay Muqdisho fursadii ugu dambeysay ugu muhiimsaneed oo horta la ra'iisul wasaare Roble Cabdiwali Gaas oo warar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo Jubbaland oo shaacisay mowqifka kaga aadan shirka uu ku baaqay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasiyad warkayga ku daawan doontaan oo diyaar garooba warkii oo fidsan intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkayga ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan sida hordhaca warkayga aad ku daawanayseen madaxweynaha Soomaaliya ayaa doorashada iyo amnigeeda ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad la wada sugayay ka horjeediyay golaha shacabka ayaa shaaca ka qaaday inuu fulinta doorashada iyo amnigeeda ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble Farmaajo ayaa xubnaha baarlamaanka ka codsaday inay ka aqbalaan in laga laabto muddo kororsiga isla markaana dib loogu laabto miiska wada hadalka si loo hirgeliyo heshiiskii 17 September madaxweynaha ayaa baarlamaanka u sheegay iyadoo la qadarinayo duruufaha ay wajahaysa Muqdisho inay ka tanasulaan go'aankii ay horey u gaareen oo ahaa in 2 sano lagu qabto doorasho qof iyo codkii ah Warsida TV aad la socotaan qodobadii ugu horeeyay wararkayga ayaad wali daawadayaal la socotaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka laabtay muddo kordhintii dhalisay dagaalo iyo dibadbaxyo ka dhacay Muqdisho waxa maanta kulan aan caadi ahayn xarunta Villa Hargeysa isugu yimid xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii madaxweynuhu codsaday in xildhibaanada uu la hadlo madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday xildhibaanada inay ka laabtaan sharciga jiheynta doorashada dibna loogu noqdo heshiiska doorashada ay hore u gaareen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxaa joogay ilaa 140 xildhibaan waxaana xildhibaanada cod u qaadeen ka noqoshada sharciga jiheynta doorashada ay hore u meelmariyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa shaaciyay in ka noqoshada jiheynta sharciga doorashada ay u codeeyeen ilaa 140 xildhibaan waxa uuna cadeeyay inaysan jirin xildhibaano diiday ama ka aamusay go'aankaasi ugu dambeynna waxa meesha ka baxay sharcigii jiheynta doorashada ee dhalinayay in 2 sano loogu daro madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday waxayna baarlamaanka mar kale u codeeyeen in dib loogu laabto heshiiska doorashada ay wada gaareen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya wararkayaga ay Warsida ayaad wali la socotaan daawadayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa hortaala fursadii ugu dambeysay ugu muhiimsaneed kaalinta ra'iisul wasaare Roble ka qaadan karo xalinta xiisadaha dalka ka taagan ayaa loo arkaa rajada kaliya ee laga leeyahay in dalka laga badbaadiyo colaado waxaana ra'iisul wasaare Roble ku soo jeeda indhaha shacabka siyaasiyiinta iyo beesha caalamka oo dhamaantood isagoo u arka fursada guusha nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya dadka siyaasadda oo darasa ayaa aaminsan in tani ay ka dhigan tahay fursadii ugu dambeysay oo gabagaba u ah fursadaha xiriirka oo ra'iisul wasaare Roble horay u dayacay waa fursad uu si la mid ah sidii fududeed uu siyaasadda ku soo galay ugaga mid noqon karo dadka farakutiriska ee raadadka taariikhda wanaagsan ku suntan ka taga waase haddii uu garto awoodiisa siyaasadeed kuna baraarugo filashada ballaaran ee shacabka rajabeelka ku dhaweeya xaggiisa ka qabaan waxa ugu muhiimsan ay ra'iisul wasaare Roble maanta ku maalgashan karo dhaxalka siyaasadeed ee wax ku oolka ah waa in uu la yimaado ka go'naan iyo dhiirasho aan labalabays lahayn ee uu ka qaato kaalinta hogaamineed ee siyaasadda iyo amniga dalka si loo dhiso kalsoonida burburtay damarsiga ee madaxtooyadu horay ugu dhaqaaqday isku soo dhawaanshaha hadda kala dhaxeeya musharaxiinta iyo qaybaha bulshada oo yididilo nabadeed abuuray waxa uu ku sii jiri karaa in uu ra'iisul wasaare Roble isku muujiyo hogaamiye u taagan xasiloonida diyaarna ah inuu qaato xuquuq walba oo dastuurku u siinayo samata bixinta dalka Cabdiwali Gaas ayaa weerar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xaaladda dalka ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday isagoo ku eedeeyay inuu ku fashilmay hogaanka dalka Gaas ayaa shaaca ka qaaday in Farmaajo uu ku guul dareystay qabashada doorasho loo dhan yahay isla markaana dalka uu galiyay xaalad hubanti la'aan sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday qalalaasihii ka dhacay Muqdisho waxaanu tilmaamay inay muujinayaan sida uu u soo gaabtay mustaqbalka siyaasadeed ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
cabdiweli gaas oo ra-iisul wasaare kasoo noqday dalka ayaa sidoo kale taageero u muujiyay ciidamada militariga ee kasoo horjeedo muddo kororsigii madaxweyne farmaajo horay u damacay waxa uuna hoosta ka xariiqay inay mudan yihiin in la dhiirigeliyo sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday in 4 sano ee lasoo dhaafo uu ku mashquulsanaa kaliya burburinta hanaanka federaalka Soomaaliya si uu meesha uga saaro una samaysto koox gaar ah oo isaga xulufo la ah. si kastaba hadalkan kasoo yeeray siyaasiga caanka ah xilalka kala duwanna kasoo qabtay Soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu hortagay baarlamaanka Soomaaliya isla markaana dib looga laabtay go'aankii gacan ku rimiska ah ee la doonayay in 2 sanadood loogu daro madaxweynaha waqti xileedkiisu dhammaaday. ergeyga Qatar u soo dirtay Soomaaliya oo safar ku tagay magaalada Hargeysa. ergeyga gaarka ee dawladda Qatar u soo dirtay dalka Soomaaliya Dr. Mudallaq bin Majid Al-Qahdani ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland taasoo muujinaysa isbedel siyaasadeed oo weyn. Dr. Al-Qahdani ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxaana kulamo la qaatay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland Liban Yusuf Cusman. Qatar ayaa ergeygan oo qaramada midoobay sanadkii 2020 u aqoonsatay dhexdhexaadyaha ugu wanaagsan u soo dirtay Soomaaliya si uga qayb qaato wada hadallada Soomaaliya iyo ismarwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland wax faahfaahin wali kama ay bixin safarka uu Dr. Mudallaq bin Majid ku tagay magaalada Hargeysa. Rashid Cabdi oo falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa ku sheegay in socdaalka Al-Qahdani uu Hargeysa ku tagay uu tusaale u yahay isbedel ku yimid siyaasadda Qatar ee gobolka. Al-Qahdani ayaa la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana kulamo kala duwan la qaadan doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka. Qatar oo inta badan lagu eedeeyo inay xiriir hoose la leedahay madaxda waqtigeedu dhammaaday dawladda federaalka ayaa waxa la fahamsan yahay in talaabadan ay ku muujinayso inay dhexdhexaad ka tahay xiisadda dalka. dadka falanqeeya siyaasadda ayaa rumaysan in talaabada Qatar qaada ay ka dhigan tahay inay hagaajiso sumcadda Soomaaliya ayna rumaysan tahay in maalmihii farmaajo ee xukunka ay gabagaba yihiin si ay ula macaamisho cid kasta oo xukunka Soomaaliya badashay ee farmaajo xilka kala wareegta. dawladda Kenya ayaa dib u dhigtay go'aankii ka dhanka ahaa Soomaalida. dawladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma ay ku jiraan qaxooti ay ka mid yihiin 100,000 oo Soomaali ah. go'aanka ay ku dhawaaqday Kenya kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR. Kenya waxay sheegtay in xeryaha qaxootiga xiri doonto marka la gaaro bisha June 30 sanadka 2022. guddi ka socda dawladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo 5 May 2022 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Kenya. dadka qaxootiga ayaa dib loogu celin doonaa wadamada ay ka soo jeedaan. waxaa sidoo kale qaxootiga ka soo jeeda bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doonaa inay helaan ogolaanshiyo shaqo si ay uga shaqeystaan gudaha dalka Kenya. Kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xeryaha qaxootiga Kakuma iyo Kakuma qaxooti aad u fara badan. bishii hore ayay dawladda Kenya soo cusboonaysiisay go'aanka ay ku doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go'aanka dawladda Kenya. dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in go'aanka lagu xiriyo xeryaha qaxootiga uu yahay mid siyaasadeed oo Kenya ku beegsanaysa Soomaalida xilli ay ishayaan dawladda federaalka ee dawladda Kenya. ugu dambeynna Jubbaland ayaa shaacisay mowqifka ku aadan shirka uu ku baaqay farmaajo. maamulka Jubbaland ayaa sheegay inaanay ka qayb gali doonin shirka arrimaha doorashada ee uu ku baaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad jeediyay habeenkii Talaadada ahayd ayaa ku baaqay in madaxda maamul goboleedyada ay dib isugu soo laabtaan miiska wada hadalka isla markaana dib la isugu soo laabto si looga wada hadlo heshiiskii 17 Sebtembar. hayeeshee wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh oo la hadlay BBC ayaa sheegay inaanay marna ka qayb gali doonin shir uu ku baaqay Farmaajo. maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ay kamid yihiin maamulada sida adag uga soo horjeedo dawladda Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay hogaaminaya haatan waqti xileedkoodu uu dhamaaday. waxaana Jubbaland ku biiraysaa Puntland oo horay u shaacisay inaanay ka qayb gali doonin shirka uu shaaciyay Farmaajo. guud ahaan warkii oo aad kala socotaan channelka Warsida waa inaga intaan warka xiga ku kulmi doona daawadayaal waxaan idinkaga tagay sidaa iyo nabadgelyo.